Journalist-ku oo saadaaliyay waxaa dhici kara haddii Arsenal iyo Barcelona fooda isdiraan semifinalka tartanka Champions League. Daaficii hore ee Manchester City Lescott ayaa ka hadlay waxaa dhici kara haddii ay Arsenal la ciyaarto Barcelona wareegga afardhamaadka ee UEFA Champions League xilli ciyaareedkan. Labada koox ayaa isku arki doona semifinalka haddii Arsenal ay ka badiso Sporting CP, Barcelona ay ka gudubto Atletico Madrid kulamada quarter-finalka ee bisha Abriil. Arsenal ayaa horey ugu soo gudubtay Bayer Leverkusen wareegga 16, halka Barcelona ay iyaduna reebtay Newcastle United si ay u gaarto wareeggan. Isagoo la hadlayay TNT Sports, Lescott ayaa sheegay in Arsenal ay dhibaatooyin badan ku keeni karto Barcelona haddii ay kulmaan, taasoo noqon karto dib u soo noqoshada finaalkii 2006. Ma dhihi karo Barcelona ayaa si cad u guuleysan doonta sababtoo ah qaabka ay u difaacdaan, ayuu yiri. Waxaan u maleynayaa koox isku duuban sida Arsenal oo leh tayo weerar inay dhibaato badan ku keeni karto Barca, sababtoo ah weli waxaa jira daciifnimo difaacooda ah. Si kastaba, Lescott ayaa qiray in Barcelona ay weli fursad leedahay haddii ay sii wado qaab ciyaareedkooda weerarka ah. Laakiin marka ay sidaan u ciyaarayaan, gaar ahaan labada kulan, waxay abuuraan xiiso iyagoo isku muujinaya garoonkooda, waxayna leeyihiin fursad ay ku guuleystaan, ayuu yiri Lescott. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Anigoo ah Faisal Axmed Maxamed Daacad ayaa idin soo jeedinaya. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena si share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Gabriel Magalhaes oo ka hadlay sida ay Arsenal isugu diyaarisay dagaalka Manchester City. Gabriel Magalhaes ayaa sheegay in Arsenal ay si weyn ugu faraxsan yihiin inay la ciyaaraan Manchester City finaalka Carabao Cup-ka. Waxaan u maleynayaa inay dareen aad u fiican tahay in kooxdan ay finaalka gaarto iyadoo la ciyaaraysa koox heer sare, ayuu yiri daafac dhexe ee Brazil Gabriel. Waxaan qabnaa dareen wanaagsan, mana sugi karno kulanka. Gabriel ayaa sidoo kale tilmaamay sida muhiimka ay u tahay guusha. Sida aan horey u sheegnay, waxaan ku jirnaa tartamada oo dhan. Dhab ahaantii waxaan doonaynaa inaan guuleysano ciyaar kasta oo aan ciyaarayno. Waxaan aad u xiiseynaynaa ciyaartan. Waxaan ognahay inay noqon doonto dagaal adag, laakiin waxaan diyaar u nahay inaan isku dayno inaan guuleysano. Finaalkan ayaa Arsenal siinaya fursad ay ku xoojiyaan koobkii ugu weynaa ee 6 sano kadib, tan iyo markii ay qaaday FA Cup-kii 2020. Gabriel oo ka mid ah ciyaartoydii ugu waqtiga dheeraa ee kooxda ayaan weli u dabaaldegin guul weyn oo horyaalka ah. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Anigoo ah Faisal Axmed Maxamed Daacad ayaa idin soo jeedinayay. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena si share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Jamie Carragher oo daaha ka rogay qaladkii sababay in Arsenal laga qaado Carabao Cup-ka. Halyigii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa si adag u cambaareeyay go'aankii uu Mikel Arteta qaatay finaalkii Carabao Cup-ka ee Arsenal ku wajahday Manchester City. Carragher wuxuu sheegay in qaladka ugu weyn uu ahaa in Arteta uu ku soo bilaabo Kepa Arrizabalaga halkii uu kaga soo bilaabi lahaa goolahayaha koowaad ee David Raya. Wuxuu xusay in marka kooxdu ay muddo dheer koob la'aan ahayd, ay muhiim tahay in la soo xusho safka ugu xoogan finaalka si loo qanciyo taageerayaasha. Marka aad waqti dheer koob la'aan tahay, waa inaad gelisaa ciyaartooyda ugu fiican finaalka. Wuxuu ku kacay qalad weyn, ayuu yiri Carragher. Si kastaba, Arteta ayaa difaacay go'aankiisa isagoo sheegay in Kepa uu mudnaa fursadda maadaama uu ciyaaray dhammaan kulamadii Carabao Cup-ka ee xilli ciyaareedkan. Laakiin go'aankaas ayaa noqday mid qaali ku noqday Arsenal. Kepa Arrizabalaga ayaa qalad sameeyay daqiiqadii 60aad markii ay ka baxsatay kubad sare oo ka timid Ryan Cherki, taasoo u sahashay Nico O'Reilly inuu dhaliyo goolka furitaanka. Intaas waxaa dheer, Kepa ma uusan samayn hal badbaadin intii uu socday kulanka, halka City ay labadii fursadood ee ay bartilmaameedsadeenba u rogeen goolal. Dhanka kale, David Raya ayaa xilli ciyaareedkan ku jiray qaab ciyaareed heer sare ah, isagoo ku hogaaminaya Premier League 15 clean sheet, taasoo sii xoojinaysa dooda Carragher. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, waa anigoo ah Faisal Axmed Maxamed Daacad oo idin socodsiinayay warbixintii ugu dambeysay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena si share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Joe Cole oo Chelsea farta ugu fiiqay difaaca halka uu noqon karo difaacooda suuqa xagaaga. Halyigii hore ee Chelsea Joe Cole ayaa soo jeediyay
in kooxda Blues ay xagagan la soo saxiixato daafaca Tottenham Hotspur Mickey van de Ven. Joe Cole ayaa si cad u sheegay in Van de Ven uu noqon karo saxiix aad ugu habboon Chelsea, gaar ahaan qaabka ay u ciyaaraan. Wuxuu tilmaamay in daafacan uu leeyahay xawaare sare iyo awood uu ku difaaco weerarada halka taasoo muhiim u ah ciyaaraha difaaca sare. Van de Ven wuxuu u muuqdaa inuu doonayo inuu baxo, wuxuuna noqon lahaa ciyaaryahan aad u fiican oo Chelsea ku soo kordha, ayuu yiri Cole. Xaaladda Tottenham ayaa sidoo kale ka dhigaysa heshiiska mid suuragal ah. Tottenham waxay hadda ku jiraan kaalinta 17aad ee Premier League, taasoo ka dhigan inay halis ugu jiraan inay u dhacaan heerka labaad. Haddii ay dhacdo in Tottenham ay hoos u dhacdo, waxaa si weyn u yaraan kara awoodda ay ku sii haysan karaan ciyaartooyda ugu fiican, taasoo fursad siin karta Chelsea ama kooxo kale inay si toos ah la wareegaan Van de Ven, xitaa qiimo ka jaban kan caadiga ah. Si kastaba, qandaraaska Van de Ven oo soconaya ilaa 2029 wuxuu la micno yahay in Tottenham ay weli dalban karto lacag badan haddii ay iibiso. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Alan Shearer oo magacaabay labada xidig ee lafdhabarta u ah Man United iyo Liverpool waqti xaadirkan. Halyigii hore ee England Alan Shearer ayaa ammaanay Dominic Szoboszlai, isagoo ku tilmaamay xidiga ugu iftiinka badan Liverpool xil ciyaareedkan. Liverpool ayaa la dhibaatoonaysa inay ku celiso qaab ciyaareedka ay ku qaadeen horyaalka xil ciyaareedkii hore, iyadoo hadda ku jirta kaalinta 5aad isla markaana natiijooyinkoodu yihiin kuwo isbedel badan. Si kastaba, Shearer wuxuu aaminsan yahay in Szoboszlai uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha yar ee wanaagsan ee kooxda. ciyaaryahanka ugu iftiinka badan Liverpool xil ciyaareedkan waa Szoboszlai, shaki kuma jiro tayadiisa, ayuu yiri Shearer. Wuxuu sidoo kale isbarbardhigay saameynta Szoboszlai iyo Bruno Fernandes, isagoo sheegay in labaduba ay yihiin lafdhabarta kooxahooda. Szoboszlai ayaa lagu ammaanay goolashiisa muhiimka ah, tamartiisa iyo dabeecaddiisa wanaagsan, halka ciyaartooyda kale ee Liverpool ay hoos uga dhaceen heerkii laga filayay, arrin ka dhigaysa inuu si gaar ah u muuqdo xil ciyaareed ka duwan kii hore. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Rasmi Mohamed Salah oo xaqiijiyay inuu ka tagayo Liverpool dhamaadka xil ciyaareedkan. Weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo kooxda Liverpool dhamaadka xil ciyaareedkan. Mohamed Salah ayaa arrintan shaaca ugu qaaday muuqaal uu ku daabacay boggiisa baraha bulshada fiidnimadii Talaadada. Ciyaaryahanka 33 jirka ah ee reer Egypt ayaa ku biiray Reds bishii June 2017 isagoo kaga yimid kooxda Rome. Nasiib daro maalinteedii way timid. Tani waa qaybtii ugu horeysay ee sagootintayda, ayuu yiri Mohamed Salah. Waxaan ka tagayaa Liverpool dhamaadka xil ciyaareedka. Kooxda Anfield ayaa sidoo kale soo saartay bayaan iyagoo shaaciyay in Mohamed Salah uu go'aansaday inuu soo afjaro heshiiskiisa goor hore. Bayaanka ayaa lagu yiri Mohamed Salah wuxuu muujiyay rabitaankiisa inuu heshiiskan si degdeg ah ula wadaago taageerayaasha si uu u muujiyo daahfurnaan ku saabsan mustaqbalkiisa, taasoo ka dhalatay ixtiraamka iyo mahadcelinta uu qabo tan iyo markii laga soo saxiixay AS Roma xagaagii 2017. marka 11aad wuxuu si buuxda uga mid noqday ciyaartooyda ugu waaweyn taariikhda Liverpool, isagoo ka caawiyay kooxda inay ku guuleysato 2 Premier League iyo UEFA Champions League, FIFA Club World Cup, iyo UEFA Super Cup, FA Cup iyo 2 EFL Cup, iyo sidoo kale FA Community Shield. 255 gool oo uu dhaliyay 435 kulan ilaa hadda ayaa ka dhigaya ciyaaryahanka reer Egypt mid kaalinta 3aad kaga jira liiska goolaliyaasha ugu sareeya ee abid soo mara kooxda Liverpool, isagoo sidoo kale ku guuleystay kabta dahabka ah ee Premier League 4 jeer iyo abaalmarino kale oo shakhsiyad oo badan. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Alan Shearer oo shuruud adag hordhigay in Rice ku garaaco abaalmarinta xidiga sanadka Bruno Fernandes. Halyiga Newcastle Alan Shearer ayaa uga digay Declan Rice in ku guuleysiga Premier League kaliya aysan ku filnaan doonin inuu ku garaaco kabtanka United Bruno Fernandes abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka. Si kastaba ha ahaatee, Alan Shearer wuxuu qiray in Declan Rice iyo Bruno Fernandes ay yihiin labada ciyaaryahan ee ugu cadcad abaalmarinta. Bruno Fernandes ayaa hiigsanaya rikoorka caawinta ee horyaalka, isagoo hadda haysta 16 caawin marka lagu daro 8 gool oo uu dhaliyay.
ciyaaryahanka qadka dhexe ee Portugal ayaa sidoo kale hogaaminaya dadaalka Manchester United ee ku aadan u soo bixitaanka UEFA Champions League qaybta labaad ee xil ciyaareedka. waxaan u malaynayaa in labada musharax ee ugu fiican ay yihiin Declan Rice iyo Bruno Fernandes ayuu yiri Alan Shearer isagoo la hadlayay Betfair. Manchester United waxay soo mareen dhibaatooyin culus xil ciyaareedkan, laakiin Bruno Fernandes ayaa aad u iftiimay. waa la wada ogyahay halka ay joogi lahaayeen la'aantiis wuxuu ahaa ciyaaryahan cajiib ah. si kastaba marka loo eego Declan Rice sida uu Arsenal isugu muujiyay kulamo badan, waxaan u malaynayaa inay ku xirnaan doonto waxa dhaca marka koox ay koob weyn ku guuleysato. haddii Arsenal ay ku guuleysato 3 koob ah ama 2 koob iyadoo xaqiijinaysa guul macquul gal ah, markaas waxay u badan tahay in ciyaaryahanka sanadka uu noqdo xidig Arsenal ah, waxaana Declan Rice uu ka mid yahay kuwa ugu fiican. fiid wanaagsan saaxiibayaal, meel baad naga daawanaysaan. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena si share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. mahadsanid.